ninkeedii bay dishay sun ayay siisay intaysan dilin ka hor dadka ayay filimaanta horarka ah iyo qaabka la isku dilo iyo waxaas ayay uga warrami jirtay markay ninkeeda dishay kadibna filimaantii way joojisay si aan loo ogaanin bulshadan aysan uga kacin ayadoo uga gal leh in aan la dareemin laakiin xaqiiqda waxay tahay inay ninkeeda dishay waxaas baa social media ayaantaan dhan la wadaa gabadhan maanta hadday ayada isdisho idinka aakhirana lee haystaa subax walba markaan soo kaco shaqada aan cararayo iyo aan ka imaanayo khol aa laga soo furanaya waa daily iyadoo lagu raadsanayo views inay dishay ninkeeda war gabadhan ninkeeda hadday dishay meeshana waa London ee gabadhan degan tahay Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh soo dhawaada saaxiibayaal muuqaalka shargaleeya aad bad mahadsantiin saaxiibayaal ku mahadsantiin la joogitaankeena ka mid ahayna markii koorisan soo martana dadka waxaan ka codsanaa taawada muuqaalkana meel dheer gaartay soo gameyn noqdo muuqaalada Soomaalida kooda lagu daawashada badan yahay waxaan ka codsanay muuqaalkan si uu noqdo weerar badan si uu noqdo muuqaalkan muuqaal dad badan ay magaran sax ku qaataan inaad muuqaalkan meel dheer gaarsiisaan waayahay saaxiibayaal saaxiibaan ka soo aragteen isla halkan uga jeedaan labadaba saaxiibayaal maanta ama waxa la kastay ku tahay waxaan ka hadlayaa gabadha halkan horteena ka muuqata gabadha waxa lagu magacaabaa hodan online waxay ka mid tahay dhalinyarada baraha bulshada isticmaala gaar ahaan aalada YouTube iyo TikTok iyo Snapchat waxay ka mid tahay dumarka soo jeediya qisooyinka aad ka layaab badan oo badan ay aad ugu xiran yihiin dad iyo aad u fara badan oo iyadoo madadaalisa gabadhan maalmihii ugu dambeeyay hadba soo hore uga soo hadalna muuqaal 100,000 ay daawadeen ku dhawaad 770,000 dheeraad ay daawadeen oo bartana page-ka Cabdi Maxamed soo gelinay iyo soo kale muuqaal YouTube-ka soo kale soo gelinay sagana daawadeen dhowr kun waxaan hore ugu sheegnay in ay gabadhan waxay nafta dhaafisay ama waxa ay dishay ninkeedii hore xaajigeedii iyo magaran saygeedii aan raxnay hadana dalka Ingiriiska ayaa aroos ku tahay muddo laga joogo 7 ilaa 8 bilood ka hor ay ku guursatay dalka Ingiriiska hadaba arintaas aan saaxiibayaal balmaanta doonayaan ka daba tago oo wixii xogeyn ka helay iyo inta wixii magaranaysa baarisan ka soo waday inaynu ka dul istaagno ee soo dhawaada saaxiibayaal muuqaalka si fogeeyay meeldeeda si gaarsiiya aad iyo aad u baahantiin ugu horeyntiina bal horta wiilka dhalinyarada ah aynu in yar wada daawano bay dishay sun ayay siisay intaysan dilin ka hor dadka ayay filimaanta horarka ah iyo qaabka la isku dilo iyo waxaas ayay uga warrami jirtay markay ninkeeda dishay kadibna filimaantii way joojisay si aan loo ogaanin bulshadan aysan uga kacin ayadoo uga gal leh in aan la dareemin laakiin xaqiiqda waxay tahay inay ninkeeda dishay waxaas baa social media ayaantaan dhan la wadaa gabadhan maanta hadday ayada isdisho idinka aakhirana lee haystaa subax walba markaan soo kaco shaqada aan cararayo iyo aan ka imaanayo khol aa laga soo furanaya waa daily iyadoo lagu raadsanayo views inay dishay ninkeeda war gabadhan ninkeeda hadday dishay meeshana waa London ee gabadhan degan tahay ama Ingiriiska ama UK ama Britain ayay degan tahay haddii ninkeeda ay dili lahayd ma kula tahay adiga inay saan u socon lahayd ayada nin kale aroosi lahayd oo nolosha caadi u ahaa lahayd ma kula tahay never ever hadday sun siisay lama duugeen ninka ay dishay aad sheegaysaan asoon la baarin lama duugin warqad shahaado ayaa soo baxaysa sababta uu dhintay qaabka waxa dilay saacada uu dhintay xilligay ahayd taariikhda bisha shay ma qarsoomayo meeshu waa Europe ee ma ahan meesha aad hadda joogtid oo live ka soo gashid ma ahan qof inta dhinto liska duugayo isla markiiba ma jiro at least 1 week uu qaadana hadoo wax qaato at least wuxuu qaadana ugu yaraan yani 1 week uu qaadana in la duu waayahay saaxiibayaal muuqaalkan wada aragnay ama in kooda dhignay waxa weeye wiil dhalinyaro oo xaqiiqada dhabta ay ka jirta Yurub iyo sidoo kale sidoo u geeriyooday ilaa naxariis marxuunkaasi marxuun intay in baraha bulshada hadda dib loo soo geliyo ayaa qalad ay ku hadlayaan hadaba daawada waxa kale horta muuqaalkan halkan dad soo gaaray hafudaanin nala si joog anaga xaqiiqada ku taabsanay sida xujireen ee halkan marka joogna hadda joogto hatay ma kula daawad waayahay gabadhan qisadeeda hore ayuu uga sheekaysay gabadhan nin ayaa guursaday iyadoo Masar joogta oo Masar wax ka barata ama Masar degan waxaan raahne uu ka hayay dalka Ingiriis ku geeyay ninka waxay sheegtay xataa inuu labadeedu waalid oo kale halkii ugu jiraan oo kale ugu jiray laakiin Ilaahay lahaa baa jeclaaday qofka Ilaahay lahaa haduu jeclaadana aad joojin kartaa
ma jirto halka ma wada joogino hadduu ilaahayna kala jeclaado war way faanta Soomaha gabadhan iyadoo Dubai joogta oo dalka Dubai joogto ku fakaraysa inay dukaan furato ayaa odaygeedu xanuunsaday oo ku geeriyay dalka Ingiriiska gaar ahaan caasimadiisa London sidoo hore inoogu sheegay walaalkeen ama wiilka dhalinyarada soo wada daawanay wadamada caalamka ama adduunka horumaray marka laga yimaado Soomaalida iyadu qeyrkeed iska reebtay Soomaalida iyadu dadkiisa hoos marisay marka laga yimaado ma jiro qof la aaso يعني العاصمة مركان لا تذكر مجرد الكوفر وحنا فاهمين للدوجو أنا ودوجتان كحول نقول قف كين لتعطابتهم مجرد مركان لقى سعره إن قفل عاصة متشرو إلى الله بيو جيري سوى حسب باي وده ونختاركم بعضهم قف كينو كسر انتي يانو كم عود انتي لبض قفكم صابتوا انتي على اللي قاعده قف كسر الشهادة اللي قف كسر انتي أنا الشهادة أي اللي قف كاغو هدور انتو awowgii hadaad magaciisa maanta hospitaalada ka baadhad ku tahay baad hebel baad hadaad ku tiraahdo dhakhtarka ku dhintay oo ka helaysaa shahaadadiisa sababtu dhintay goortu dhintay halka lagu aasay iyo xilligii la aasay inta waa la heliyo hadaba qof adduunka horumaray jooga ama wadamada horumaray jooga dadkan Soomaalida qeyrkiis ka rabay dhulkeeda joogin ayuu baas ka dhaadhiciyay gabadh miskiina oo walaasheena ayaa ninkeeda sunaysay hal su'aal oo kale meesha way taalaa taadul saaran doonayna iyadana dul istaago qofka hadii nololeed ka dhaxayso qabtaan oo isfaham weydaan ma jira sabab naftiisa oo jirta ma jira sabab ilaahay sabab kaaga soo dhigay ma sheegin laakiin wadaad isaga ugu mashquulshaa ma jiro qofka hadii isfaham weydaan ilaahay dunyada u balaariyay aan xagga qofka marna arkeen ka halka marna arkeen kala tagtaan marka gabadhan iyo ninkan hadii hore si fahmi lahayn waxna aaminsanaa in adduunyada kala tagi lahaayeen laakiin sababta qofka ninkeeda dashay cid keentay oo taaqriyada la weydiinayay taas saanu ognahay walaashan waxa leeyahay gabadh sharaf badan tan ogahay social media ku jirta hal baraan ka hadlay inantaas barigi waqtigu dhintay la naxariista marxuunku ayaan ubadkeeda ka hadlay oo baraha bulshada loo wareejinay comment soo qortay waxa uu tan muuqaalkaas walaalo ma qurux badna ee ka saar barta YouTube waa ka saaray in la ixtiraamo hadii social media la wada jooga ayaan qurux badan qofka la mihnada inuu ixtiraamo oo wanaag u hayo qurux badan mar walba si kastaba aad daawado saada kula muuqata muuqaalada caynkan oo kala ee gabadha laga baahay maalmaha baraha bulshada haystay horena aan uga hadalay hadana gabagabadiisii aan ku hadalay si fogay muuqaalka meel dheer si gaarsiiya soo waana qaadasho iyo cibir qaadasho iyo dadka xumaanta wada ay halkaas ku soo gabagabaan aad iyo aad noo